sinaan arli iyo bad hidaheena firi dhaqankeena alla nuguma nasto waxaan nahay gob walxad iyo waran gashan iyo duco geesinimo adag awood iyo karti magabada wale umanaha cadow gardariya kibir baan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Asxaabta sida aad cibaanka kusoo aragteen videoga waxa uu ka sheekeynayaa wax walba oo la soo wado beri dadka bis 2021 mobilka dheelo ayaa la hadlayaa wax walba oo beri la soo wado oo luqadda afka Soomaaliga lagu sharaxayo. Kusoo dhawaada videoga asxaabta channelka hadaad ku cusub tahayna subscribe saaro. waa channel luqadda Soomaaliyeed afka Soomaaliga base oo ku turjumayo. insha Allah videogeena ayaan u guda galeynaa asxaabta. beri oo taariikhdu ay tahay 29 bisha 10aad 2020 oona ah maalin khamiis ah. beri Konami waxa ay keenaysaa sida shaashada idinkaga muuqata iconic oo boggeeda ay ku cadeysay sida hadda shaashada idinkaga muuqata. warkan fake man ilaa Konami website ayay leedahay marka website-keeda ayay ku cadeysay. iconic la keenayo nooco u yaala fiyer ma ku jira gameka dadka dheelo 99% waa dad jecel Patrick Vieira. haddaba Patrick Vieira ma ku jira asxaabta. box droga ayaan isla arki doonaa. box droga waa mid ka hadda shaashada idinkaga muuqdo. hambali ayaan idin leeyahay dadka Vieira laasan. Vieira wuu ku jiraa sida shaashada aad uga jeedaanba. marka asxaabta beri ayaa la keenayaa Konami ayaa sheegtay Patrick Vieira wuu ku jiraa. box droga hadaan gudaha uga sii galno sida hadda shaashada aad uga jeedaan rag waaweyn ayaa ku jira oo iconic oo Arsenal ah ayaa la keenayaa oo ay ka mid yihiin Gilberto Silva iyo Campbell iyo Patrick Vieira. Campbell aniga ayaa haysto oo base 2021 markii la bilaabay ayaa waxaa lagu soo bedelay Gifu oo Inter Milan ayaa lagu soo bedelay. Campbell waa nin oo caadi aan ahayn oo 95 ayuu tagayaa daafacnimadiisa. Vieira waa taqaaniin 99 ayuu tagayaa. marka max rating-kooda waa kana sida shaashada idinkaga muuqata. asxaabta haddaan intaas uga gudbo khamiistan abaalmarino kale ayaa jirta. sida wargeysyada caalamka waxay oo ka faalooda beeska waxay aad u hayaan khamiistan. warkan waa iska qiyaas waaye. boto player of the week hadda shaashada idinkaga muuqda oo ay ku jiraan Lewandowski, Sergio Ramos iyo waa wax gacan ku sameys ah ma aan wax run ah maaya asxaabta. yacni haddii la keeno ku qaato waaye. subaxii khamiista subaxa 12 khamiista haddaad soo kacdid oo aad gameka geshid oo aan website-ka gameka hore uga sii geshid waa arki doontaa dadka Konami ay keenayso ilaan ayaka ayaa qoraal kugu sheegayaan. marka hadda kan waa ku gacan sameys waa adoora horta intaan dad kamid ah waa la keenayaa laga wadaa ama Ramos laga keenayaa ama Lewandowski laga keenayaa ama Philip Foden laga keenayaa. waa dadkii ugu fiicnaa isbuuc ay ka wadaan. asxaabta warka kale oo aan baryahan aadka aan u maqlayay oo Konami xataa ay shaacisay dadka qaar waxay u moodaan Ronaldo oo free oo Ronaldo waxay dhaheen Ronaldo ayaa free la isku siinaya. Ronaldo oo base 2021 oo free ayaa la iskugu siinaya. dadka qaar been u moodeen saaxiib waa Ronaldo free ayaa la isku siinaya. Ronaldo oo free 3 qaybood oo kala bixin doona. 3daas qaybood waxa ay kala yihiin ama Konami waxay ku siinaysaa Ronaldo oo base ah. base waa midka hadda shaashada kaaga muuqda
ama sidoo kale waxay ku siinaysaa Ronaldo oo future ah, waa midka shaashada hadda kaaga muuqda, ama waxay ku siin doontaa Ronaldo oo iconic ah. intaas wax ka dhexeeya malaha oo kan hadda shaashada kaaga muuqda. marka asxaabta midaan u sheegayaa, Ronaldo waa la isiinayaa, ma dadka kombyuutarka ku dheelaa la siinayaa, ma dadka oo PlayStation-ka ku dheelaa la siinayaa, mise dadka mobilka ku dheelaa la siinayaa? Asxaabta horta dadka mobilka ku dheelayo Konami ma shaacin in la sheegayo in la siinayo. Haddaba saaxiib, aniga hadhowda igu qabsan, haddaa mobil ku dheeshid Konami waxay dhahday waxaan siinaynaa dadka ku dheelo PlayStation-ka iyo PC console. PC console waa dadka ku dheelay kombyuutarka. haddee hooyada kombyuutar ama aabaha kombyuutar uu kuu soo gaday oo aad base ku dheeshid waa helaysaa, ama haddii cidaada PlayStation aa haysatid ama ay kuusoo gadeen oo aa ku dheeshid base waa helaysaa. laakiinse mobilka Konami ma shaacin, mobilka website-ka ma ku shaaciso. mobilka khamiista subaxeeda ayaan arki doonaa hadday dhahdo dad reer mobilka ama dadka ku dheela mobilka khamiistan waan siinaynaa. Haddaba Ronaldo ma idiin sheegay goortuu imaanayo Ronaldaha friiga ah? Ronaldaha friiga wuxuu imaan doonaa beri ayaa la keeni doonaa, 29 Oktoobar waa beri. haddaba ku duceysta in oo in dadka mobilka lagu soo daro. Konami xaq maan inay siiso PC console iyo PlayStation, mobilada dadka ku dheela xaqa ayay leeyihiin. marka asxaabta ku duceysta inay idin siiso mobilka Ronaldo haddana waxa uga sii duceysataan inaa hesheen kan iconiga, sababtoo ah iconiga waa mid aad iyo aad u khatar badan oo Ronaldo waa waayigii Juventus oo u dheelayay oo hadda xataa uu ka tirsan yahay, waa 2019 iconiga kasoo dhigeen. marka asxaabta halaasa ugu waaweyn. abaalmarino kale oo Konami ay bixinayso oo ma jirto. Konami abaalmarino kale ay bixinayso ma jirto. marka videoga waxaan kaa codsanayaa saaxiib si walaaltinimo ah, liketa inaad u saartid, shareta inaad ku qabatid videoga ama YouTube-kan adigoo dan ku yahay, sababtoo ah beeska haddaa English ku fahmi weyse translate for Somali language ayaa lagugu turjumay. marka channelka waxa uu marayaa 142 subscribe, ma ahan 142,000 oo subscribe, waa 142 subscribe. marka dadkii oo youtuberadii hadda furtayna waxay marayaan 500, markaas dadkooda ayaa gaarsiiyey. marka wiil walaalka oo saaxiibka ah inaa xaasidid waa laga fiican yahay. subscribe saaro si aad u heshid wax walba oo base ku saabsan oo af Soomaali macaan lagugu turjumay. marka waa mahadsantahay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. It's caught in the crossfire. It's caught in the crossfire.